السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سود الدنيا كجوكتا ونقد دعوة نيسان كسود هذا برنامج كده نيرة وتضبط كي بهالجيل إن كي ما جري استوديو على بعض تيفيق الصومالي channel وكلية مقالة نيروبي برنامج كده نيرة تضبط كانوا حق عنك جيستي قصوم ديسا أو ركنا نيرة الصوماليات إن بدون يوث ألانس ولا يهرمرين ترى نيرة الصوماليات برنامج كده نيرة تضبط كم إحنا قلق يبقى هذا دونا أقوي هنو يو نيرة كلا يجنا دو فربضان أو كان فردة نيرة كلا يجنا حاجة ندوبان ويجنا ديار واحد ضد البرنامج كي يبقى تان ضدنا أيات toddobaadkan wuxuu ku saabsanaa doontaa doorka dhalinyarada kaga aadan dawlad wanaagga iyo horumarka dalka dhalinyarada kaga aadan dawlad wanaagga iyo horumarka dalka bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdi Yuusuf Cabdi Senegal ayaan ku magac dheerahay runtii markii aan ka hadlo su'aashaada ku aadan dhalinyarada doorka ay kaga aadan yihiin dawlad wanaagga run ahaantii way fara badan tahay sababtoo ah marka aan ka hadalno dhalinyarada Soomaaliyeed run ahaantii door weyn kama ciyaarno dhanka horumarka ama ha noqoto dhismaha dawladda ama dhinacyo badan taasoo keentay waxaan jeclahay meeshan inay isugu keenyartay Nabadoon iyo Somali Channel oo barnaamijkan soo abaabulay waxay ka qayb qaadan karaan dawladda markii la casuumad dhalinyarada markii loo yeero oo la yiraahdo dhalinyaro shir baa la qabaa imaada dawladda ayaa maanta waxay ka hadlaysaa barnaamij horumarin imaada iyo inay dawladda sameeyso ururo ama barnaamij dhalinyarada isu keenayo maxaa yeelay sida ay walaalihii sheegeen ururo badan ka jiro oo magaalada ka jiro ama meel walba ka jiro oo macnaha nin walba goonigiisa ururo isaga jiro marka wali dhalinyarada iskama warqabto waxaas oo dhan waxa asal u ah ama base u ah in ay dawladda nidaamiso because dawladda ayada ayaa xukunta dalkii dhalinyaradii ayada ayaa loo baahan yahay inay ka casuunto ayada ayaa loo baahan yahay inay shirarka ugu yeerto ayaga ayaa loo baahan yahay markay tala jirto inay ugu yeerto laakiin haday dhalinyarada iska fadhido waxba ma jiraan mid kale markaan ka hadlo dhalinyarada loo baahan yahay in la hormariyo ama door weyn ka ciyaaro waa dhalinyarada dalka jooga ayagana waxa aqoon ma lahan waxa loo baahan yahay dadkaas in la siiyo trainino workshop la siiyo oo ay dawladda hergeliso system ama nidaam dadkan ay isugu imaanayaan taasna waxaan dhihi lahaa way ka jiftaa dawladda maxaa yeelay dhalinyarada way taagan tahay dhinacyo badan ayaa loo isticmaalaa dhalinyarada ayaa loo isticmaalaa dhibaatooyin badan ay ku jiraan wadamada Afrika oo dhan xabsiyada ay ka buuxaan meel walba dhibaatooyinkaas oo dhan wax ka warqaba ma leh laakiin hadii ay jiri lahayd dawladda hadii ay sameyn lahayd system ama nidaam oo macnaha dhalinyaradan la isugu keeno looga qayb galiyo siyaasadda looga qayb galiyo horumarka markaas ay ka qayb gali karaan laakiin haddii laga qayb galin yaa ka qayb galayo anaga yaa halkan isugu keenyay Nabadoon iyo Somali Channel ismaana naqaanin waxa suuragal ah in ay isbarano laakiin haday sameeyaan sida hadda ay sameeyaan ururadan oo kale iyo ururo kale oo kale waxa suuragal ah inaan isfahanno waxa suuragal ah inaan ka qaadano inaan ka qayb qaadano horumarka kamana qayb qaadan karno horumarka anagoona aqoon lahayn waa inay marka hore aqoonna siiyaan aqoon ma rabna 5 sano 10 sano aqoon waxa jira gaaban oo dadka la siiyo qofka xitaa aan waxba baran trainina jiro seminaara jiro oo waqti ku bees gareysan wacyi gelintan ka qayb qaadan karnaa waxaan ka qayb qaadan karnaa inaan dhahno war dawladdan wayno wanaagsan hal raaco inaan wacyi gelin badan sameeyno inaan dadka ku dhiirigelino inaan hooyooyinka ku dhiirigelino gabdhaha ku dhiirigelino ayaan ka qayb qaadan karnaa waxaan ka qayb qaadan karnaa inaan ka mid noqono dawladda waxaan ka qayb qaadan karnaa markii ay jiraan shirar dawladda ku saabsan inaan naloo yeero oo fikradeena ka dhiibano laakiin haddaan naloo yeerin kama dhiiban karno waa meeshan iska joogayna ani waxaan jeclahay inay ay muhiimadda tahay dawladda inay sameeyso nidaam dhalinyarada ay isugu keento intaas ay aad ma santahay Senegal waxa tahay qofka ugu dambeeyay ee oraahda ka dhiibanaya barnaamijkan oo soo gabagabay doona marka maxaad is leedahay way ka hortaagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed dawlad wanaagga iyo horumarka dalka inay ka qayb qaataan okay aniga waxaan ku soo koobayaa saddex inay uga qayb qaadan karin ama ay ka hortaagan tahay dawlad wanaagga ama horumarka dalka dhalinyarada waxa ka hortaagan number 1 waxa ka hortaagan wax la yiraahdo education markii aan dhaho waxbarasho markaan ka hadlo ma aha waxbarashada school u baahan ee waxbarashada waxa weeyaan ma naqaanaba anaga tusaale ahaan hadda dastuur la soo saaray xaq ayaan ku leenahay xuquuq ayaan ku leenahay dastuurkaas qof anaga naga mid ah oo garanaya ma jirtaba badanaaba dhalinyaradeena taasina waxa uu sabab leh dawladii oo la fariisatay dastuurkii meesha laga rabay inay dadkii barto wadaniyadii iyo waxyaabo badan dhalinyaro ahaan anaga wadaniyad ma naqaano number 1 mid labaad waxaan aan naga hor istaagan qabiilka maxaa yeelay jaga soo baxayso jagadii ninba waxa looga keenayaa meel kale dhalinyaradii way joogtaa lama siinayo maxaa yeelay waxa leeyahay adiga wali waqtigaagu dhimayaa sida gabdhaha loo marginalize garay amal number 3 waxaan ka dhigayaa dawladda maxaa yeelay nin la yiraahdo Saint Augustine oo qoraa ayaa wuxuu yiri in unjustice government there is no government at all oo macnaheedu yahay dawlad
aan just lahayn ama justice ama equality aan lahayn ma ahan dowlad ma ahan dhalinyaro ahaan injustice ayaana lagu sameeyaa waana la marginalize garaya maxaa yeelay haddii ay dowladda xuquuqdeena ama haweenka ay ku leeyihiin ama dhalinyarada ay ku leeyihiin haddii ayna bari lahayd ama ayna siin lahayd wax naga hor istaagi lahaa ma jirto tanaan ku eedeynayo waa dowladda saddexdaas ayaan ka dhiibanayaa eray waana mahadsantihiin thank you aad baa u mahadsantahay Senegal daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkiiba hal jeer kaga imaan jiray studio labaad ee TV-ga Somali Channel ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijkii dhalinyarada ayaa qabsoomudiisa toddobaadkani waxaa gacan ka geystay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Nabadoon Youth Alliance oo urur ololaya horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Nabadoon waxa uu leeyahay website uu ku soo bandhigo doodo cilmiyeysan kuwaasi oo qofka midda billaha ah ka jawaaba oo ku guuleysan doona mobile midda isbuuclaha ahna oo ku guuleysan doono kaarka Safaricom ku shilin ah qof alaali qofkii doonaya inuu ka qayb qaato wuxuu booqanayaa www.nabadoonyouth.com kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay isdiiwaangeli foomkaasi markaa buuxisid waxa ka mid tahay axsaabta ka qayb qaadanaysa doodaha lagu soo bandhigo website-ka Nabadoon barnaamijka waxaan ii timinaya anigu ah Faysal Casiir dhanka kaamiradan wuxuu ahaa saaxiibkii Qadar Shaam farsamadana waa Cabdiraxiim Darbo waa dhammaan bahda TV-ga Somali Channel magaalada Nairobi isku duuban oo indhaysantaa barnaamijka la mid ku kulmi doono nabadgelyo